عليكم كسر وادي يوتيوب channel كيغا وانيغو بلان maanta waad u jeedin qushuuc tira badan ay iga muuqato waad dareemaysaan maanta maxaa weeyaan waxay bilan wado maanta maxaa waa waxay bilan ka hadli rabto waxaa wada maanta waxaa waayaan oo ka hadli rabo oo sheegi rabo waxay tahay maanta waa maalin aad u murugo badan aad u xanuun badan aad u dhibaato badan maantay aniga maanta ii tahay kulay maanta ii tahay aniga xalay anoo shaqo ku jira waxaan arkay in maarkino magaalada Muqdisho gabar lagu dilay lagu kufsaday la xoogay wax kasta lagu sameeyay kulay dabaqna laga soo tuuray markii wuxuudi ka dhameysteen dabaqna ka soo tuureen inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un geeridu waa xaq laakiin waa kala xanuun badan wayna kala kulayl badan tahay qofkaagiyo maanta ku caafimaad qabay oo ku ladnaa oo gurigaaga ka tagay asoo caafimaad qaba aad sugaysay misana hooyo intaad ahayd aad sugaysay gabadhaada inay maanta heer ku gaarto nolol ku gaarto maanta lagu yiraahdo gabadhaadii waa dhimatay maxaa ka xanuun badan dado inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un geeridu waa xaq waana wax xaq oo wada sugaya laakiin waxaan aad ugu xumaada waxay tahay dadkii falkaas ku kacay damiir damqada ma laha damiir walaaltinimo ma laha damiir hooyan inay gabar dhal doono ma oga damiir walaalnimo iska daay damiir abtinimo damiir adeernimo damiir aabanimo xataa intaas buu ku day waayeen kullayba maanta waxaa qorneed gabadhaas inuu waqtigeeda intaan ku ekaado inuu waqtigeeda intaan le inuu dhaafinba aysan dhaafin 20 sano waa loogu talagalay soo waayo dhinaca alle ka soo dhamaatay geeriduna waa xaq inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un bal gabar yar oo wax u dhiganaysa familkoodii oo ku hami weyneed waxbarasho oo ku hami weyneed inay maaragtay heer gaarto oo heer nolol waliba nolol si dhaafta inay gaarto in maaragtay geed in laga soo tuuro dabaq 6 biyaan ah maxay geysatay maxay walaal ku geysatay maxay ka halaysay waad balamisay way ku sharaftay way ku timid hadeerta basay ku soo raacday mise bajaaji aad darta u soo qaadatay walaal maxay ka soo bisay wal waxay ka soo bisay sheeg kulay wax geeridu waa xaq inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un laakiin nacas weeye qofkii dumar wax u geysta dhibaato nacas weeyaan horaa loo sheegay nacas yahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay gabadhaas u naxariisto in ilaahay gabadhaas kitaabkeeda jaamaca gacanta ka siiyo kolleyba gacan ka xaq daranaa dishay kuwii dilana kolleyba mise adduunkan haddaad aadeen adduunkan nolol raaxay wax ku jooga adduunkan nolol raaxale ma ku joogaysiin kurbaad ku joogaysiin kurbaad ku seexanaysiin kurbaad ku soo kacaysiin sababtay tahay dhiig islaameeda ku gubaya maanta dad wax ku samaysid adaa lagaa goynayaa waayo gabar waa walaasha wayna kula dhalatay wayna ku dhaxda wayna ku dhashay nacskiyo waayo damiirkaaga maxaa u shaqeylay damiirkaagu maxay tahay sababta kugu kaliftay maanta gabar walaasha inaad dhibaatayso walaa aadaan ugu xumahay aadaan ugu xumahay markaan arkay fiidiyowga aan arkay xalay wallahi waan joogi waay damiirkaygu inaan fadhiyo uu ii diido sababtay tahay waa dareemi karaysaan hooyo dhan oo hami lahayd gabar dhan oo meel shishe laga soo waday familkeed inay hami gaarsiiso familkeed inay nolol gaarsiiso looga soo waday waxaana gudaha aan ku soo aragnay buugaagtii wax ku bara jirtay Xamdi oo ay ku dhameysay dugsiga sare adinkuna torta ilaahay intii dhibaataysan dhibaatada ka qaado intii uqdad qaba oo inuu gabar miskiin ah oo walaashiisa xumeeyo ilaahay naga qabto way anaka dhan gabdhaana ilaahay naga qabto sababtay tahay maanta gabar walaasha ah hadaad dhibaato yar u geysatid waa lagaa jaraa waana kugu dambaysaa kulleyba laakiin maalin lagu soo qabtaba maalin waa lagu soo qabanayaa gacan ku dhiglow maalin lagu soo qabtaba maalin waa lagu soo qabanayaa maalintaas maxaad samaynaysaa hadda gabarin inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un kulleyba waxaa damiirkaagu
maanta uu tabayaa waxay tahay maxad qaladkaas u samaysay. laakiin shalay waa shay xaaraan ka hore lagaa raba inaad ka fiirsatid. bal gabdhow adinkuna is ilaaliya. nin aamin ma leh. ninkii idin balamiyo rabo inuu la kulmo hotel kugu balamiha aadin. maqaayad iyo meel dad shacab weyne dhex joogaan ku ballanso walaalay waan ku baryaa walaalkaa kuuma naxayo. damiir damqadana male koleyba horta laakiin nimanka dhamma wada xumo koleyba. ilaa arka videogan waxay sameynayaan dadkan. video badan ma jiro sababtay tahay gabadha videoyaal badan ku jiraan. video waxaa weeyaan kaliya wejigeeda iyo markino ehelkeeda iyo qaraabadeeda hadlaayo. so waxay tahay wax kaloo la sheegana malaa waa dareemi karaysan xanuunka. inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. inaa lillahi wa inaa raajicuun. ilaahi waxaan ka baryaa inuu ehelkeedii, hooyadeed, aabaheed, walaalaheed inuu qalbiga u dejiyo. waayo gabadhoodii yareed oo quruxda badneed ay waxbarashada usoo dirsadeen, ay wax usoo dirsadeen nolosha waxaas lagu sameeyey. so marka xanuunka waa la arki karaa, waa dareemi karaysan xanuunkay leedahay. so marka waxaan leeyahay ilaahay qalbigiin ha idiin dejiyo. ilaahay qalbigiin ha idiin dejiyo. adinka keligiin maahan, dhammaantay soomaalida dhan meelay joogaanba waa la murugoonayaan. dhibaatada waa in la qabaan, waa in la dareemaynaa xanuunka. wax kastoo dareemaysiina waa dareemaynaa. so waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista gabadhiina. ilaahay adinkana qalbigiina ha idiin dejiyo. samir iyo imaan allah inka siiyo. gacanta ka xaqdarano dishana maanta maalina ahayna imaanaysaa. waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, dadkaas wiilashaas gacanta geysta dhibaatadaas yaysan meel kale u baxsan. hala soo qabto, isla wada jira, isla wada shaqeeya. waxasaan dhibaataynaya walaalihiina dhibaataynayaan dhan waa dareemi karaysin. maanta hadday hal gabar isku sameeyaan berina waad arkaysaa gabar kaloo lagu sameynayo. soo marka waa in laga hortagaa hadda dadkan waxaan sameynayaa. laga hadli kara malaha wallaahi bilaa. arrintan waa arrin aada u murugo badan koleyba ani ahaanteyda. waxaan aada uga damqada ehelkeedii qaraabadeediina inuu samri imaa ilaahay ka siiyo. dadkii dhibaatadaas geystana maanta koleyba xamar si nabada waad ku maraysaan, laakiin xanuunka qalbigaaga ku jiro ayaa ka tira badan. ayada maanta waxaa waaye ilaahay qabrigeeda ha waasiciya. wixii ku dhici lahaa waa ku dhaceen, laakiin gabar kula dhaalta wax isku samaysay. waana wax aada looga damqado, waa wax aada u xun, waa wax aada looga dhibaatoodo. inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. maanta videogeygan waxaan kusoo duubay inaan la damqado familkeygii, eheladaydii, qaraabadeydii ay gabadhaasi ka baxday. koleyba familkeygaadiin oo kale waana dareemi karaysiin. maanta xamdo waxa ku dhacay wax yar maahan, waa wax aada u xanuun badan, waa wax aada u dhibaato badan. waayo gabar yaroo wax baranaysay oo waxbarasho usoo kacday oo usoo sooftagtay oo inay heer gaarta rabtay, heerkeedana ogeed, laakiin malkumoodkeeda intaas ahaa. inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.